بسم الله الرحمن الرحيم أنا يوسف سليمان أحمد أو كما قاعد أفر ولا وحن برنامج كان تصالح تضبط كأي وحسن شيء نيوز ورئيس قابن كقاضية قدوميها ورئيس كان وحسن شيء نيوز قدوميها تاليد سومالان أوشلو نروي halkaasoo aan ku yara qaadaan dhigayno bal kala fadhiga soo socda ee xisbiga kulmiye iyo qaybaha uu kala jabay iyo xaaladda siyaasadda xisbigaas anigoo ku bilaabaya gudoomiyaha waxsa sheeg news صديق وفرح وأركتها حالات مرة يحسب كل مية مانتا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه أضبط يوسف فرع لو ما تنتهي سيدو وناكسنا نوغو سولو وسينو ونكاقمات عننا هل كان ارتبالك وروحان كالسلامة يعني لما انبا بلشوين تا أفكا الصومالي وكوادا شمير كستو يجوكتو قارهان رير سومالي لان سؤال شادو ودي صوتكم ما تنتهي سيدو الرنتي waxaan malaynayaa siyaasad kulli iyo xalig jiidasho ayaynu arkaynay ka jirta Somaliland gaar ahaan xisbiga kulmiye dhexdiisa ay ku soo socoto doorashadii golaha dhexe oo lagu tartamayo madax weynaha mustaqbalka cid oo tartami doonta haddii ilaaha awood loo ogolaado laakiin sida runtii orto subject la yiraahdo politicalka anigu waan soo dhigtay waxaan ahaa ardaydii reer Hyderabad India basbaana festival ka qaatay markay ugu horeysay political science ma qaatay politicalka qofka garanaya soo dhigtay ayaa garanaya waa three games the political mid waa honey game baa la yiraahdaa midna waxa la yiraahdaa business game midna waxa la yiraahdaa charity game waxa saddex qaybood oo sida runtii la wada garanayo mid waxa weeye ganacsi oo marbu business kula galaya marna waa marka uu charity game kula galay aad adiga iyo seediga iyo sodoga iyo aabaha iyo walaalka ama madax isgoysaan inkastoo islaamka laftigooda lagu dhaxalkaytaa siyaasadda laftigooda midna waxa weeye hani game baa marka ay ku gashaan madaxtooyada fadhiisato ee aad talinayso markaan hani game baa la intaas hor dhacay hada sida runtii inkastoo siyaasadda waxa la yiraahdo gebigood ay tahay shax shay bandhigo way fidma fara badan oo ka fogeynaysa caqiidada iyo diinta qofka bilaadan kana meesha doonto gelisay ay ku jirto ay leedahay waxyaabo fara badan oo aanay diintu ogolayn haddana sida runtii haddii aan dib ugu soo noqdo ujeedada aan ka hadlayo siyaasadda maanta ka jirta xisbiga kulmiye ama dalka Somaliland boorto sida runtii waxa wanaagsan dalku inuu yeesho wax la yiraahdo political analysis dad siyaasadda oo bisil oo akhriye kara oo sheegi kara oo shaacin kara oo TV-yada iyo saxaafadda soo dhigi kara oo daacadka oo ka qaldana qaladkiisa tusa ka saxsana saxdiisa tusa waxa laga yaabaa maanta haddaan kala tilmaamaan isiraahdo kala tilmaan ninka siyaasadda ku saxda iyo ninka ku wanaagsan iyo ninka ku qaldamay iyo ka ku qaloocan waxa laga yaabaa kan tilmaamaan inaad wallahi niyo siyaasadda istiraatiijiyadoodu way qaldan tahay maanta maalin ay ku cuntamayso maaha inuu arko inaan si kale wax u wado waayo anigu wixii siyaasadda wax ma ka aqaana waan garanayaa sida runtii garaadkayga gaaban faanta milliga oo wada aqaana maalintii dhaweyto iscasilaadii fara badnayd ee ka dhacday Somaliland teamka uu hogaaminayay Maxamed Biixi Yunis waxay ahayd actually sida runtii markaan sida runtaa ka hadlo mid waxyeello iyaga u geysatay sumcadoodii iyo sharaftoodii iyo magacoodii iyo maamuuskoodii waayo team ahaan waxay isku casileen Islam clubs malaha samayso dawladdu oo loo arkay inay afgambi ahayd ama inqilaab ay ahayd dadka shacabweynihii reer Somaliland kii mucaaridka ahaa iyo kii muxaafidka ahaa kii Maxamed Biixi Yunis raacsanaa iyo kii Muuse raacsanaa iyo kii Siinaay raacsanaa iyo kii Siinaay ka soo jiray intuba waxay arkeen dalka in khalkhal siyaasadeed la doonayay in la geliyo taasina waxay sumcad darro ay ku samaysay raggii isu casilay istiraatiijiyadda siyaasaddu abtirsiimo ay leedahay tusaale ahaan haddaynu soo qaadano waxa wanaagsan qofku siyaasi marka uu yahay inuu yeesho halbowle siyaasadeed oo la taliye aad iyo aad u fiican sidii preparationka markii uu ku jiray madaxweyne Obama oo kale yes we can markuu lahaa yes we can tan waxa soo qoray oo soo diyaarinay inay yar secretary-giisa sida runtii siyaasaddu waxay u baahan tahay in
somaliland ama soomaaliya ama geeska afrikaba in la sameeyo istaraatiijiyad siyaasadda lagu barto laguna falanqeeyo laguna faafiyo siyaasaddii maalintii dhaweyto iscasilaadii ka dhacday somaliland was fail mid aada u liidatay ahayd sumcad darrada ku keentay raggii waaweynaa loohanka weynaa miisaanka lahaa magaca lahaa maamuuska lahaa mar keliya ayay saaxaddii siyaasadda ay ka baxeen damage fara badan oo u geystay iscasilaadii waxaana go-aan qaadashadii aan ugu hambalyeynaya madaxweynaha somaliland axmed maxamed siin ayaa u qaatay iyo dowladdii soo dhisay markiiba looma baahnayn khalkhal siyaasadeed nabadgelya darro qax iyo dhibaato ka yimaado dalka taasi qof walibana u ogyahay shacab weynahan waxaan ugu hambalyeynayaa sida quruxda iyo qiimaha leh ay markiiba u arkeen oo meel looga soo wada jeesteen in dalka ay ilaashanayaan ay tuseen nin kasta oo siyaasadda si gurcan u ega maama waxaan ugu mahmahayaa daba malaa tiimkaasi waxay islahaayeen sida runtii sida de anigu aan arkay malaa dalka ha lagu kala yaa oday sheekh bres la yidhaahdo oo jooga magaalada copenhagen ee caasimada dalka denmark sheekh bres waa PhD holder waa falastiini waa nin aada iyo aada u adag waa sheekh fiqiga ku takhasusay Scandinavian-ka looga dambeeyo nin kastoo Scandinavian-ka ta Copenhagen taga u yaqaana masjid Barasi centerku ku yaala qaybta Soomaalidu iyo Janabigu u tago sheekh Barasi masaajidkii markii gudidii khalkhal fara badan masaajidku isagu bilaabay oo uu dhisay gudidii dhowr jeer markii la isku dhacay khalkhal ka yimi ayaa wuxuu noqday isagu inuu gudoomiye isu noqdo gudoomiye ku-xigeen isu noqdo afhayeenna isu noqdo dadna masaajidka isaga khudbadda akhriya khudbaddana cid loogama daba fadhiisto runtuu ka sheega khudbad kastoo akhriyo nin khudbadda uu akhriyo ka akhriya masaajidda kalena ma jiro ilaahay oo naxariistay nin la odhan jiray abulaban oo dhintay ayaa isagu number 2 ku ahaa dabadeedna iyadoo 2,000 oo qof ay ku tukatay maalin salaad jimcaha ku dhex tukanayo waanu intaa isu jirno sheekh Barasi ayuu nin Falastiiniis ayuu nin Carabiis ka faa'iideyso oo dadka ku dir markii la salaamo naqsada salaada jimcaha laga baxay buu intuu mikrofoonka qaatay buu yidhi waxaanu kuu sheegaynaa wax khudbad garanayo oo aqoon leh caqiidada iyo diinta garanayo iyo guddi wanaagsan masaajidka keen afad aad afduubka ku haysato dabadeedna wuxuu isla shacabka maanta haddaad ka faa'iideysan kartaa waxaan 2,000 qof jiraad jimco ku tukaday ka faa'iideyso dadna baxbu islo dawaad aragteen salaada marka la tukado jimco meel laga baxay ma jirto dadna mikrofoonka intuu sheekh Barasi la boodo waa gangster ayuu yidhi wallahi hada rijaal marid allah yashfik faataxa oo maraya ya ikhwan dadna ninkii dhamaa ayaa bixi kar warkaas la yidhi faataxa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka wada anigu maamaya tiimkii maalintii dhaweyto axsilay maxamed silaayo wuxuu ilaahay hortooda khayr ha dhigo kuwan dambe min ilaahay xilka u fududeeyo cidba ku wada hadalba te waxaan leeyahay daba istaraatiijiyadda siyaasadda xisbiga kulmiye dhexdiisa lagu tartamay hadda soo noqdo maqaal waan ka qoray sida runtii maxamed bixi yunis iyo muuse bixi cabdi iyo Soomaalida waxaan leeyahay niman tol oo wada dhashay oo gacal wada xigaale ayaa tiinis ah saaxadda siyaasadda iyo hawadeedii iyo daruurteed waxay isdul taagtay mar kaliya muuse bixi cabdi iyo tiimkiisa bahashana gobonimadu waxay ku jirtaa in la isu hibeeyo sida runtii anigu waxaan odhan lahaa nimanka odayaasha ah ee iscasilay inkastay ka xumaatay niman sharaf loo qiimo leh ayaa tihiin oo aada iyo aada u miisaan weyn haddaba waxaan odhan lahaa u hibeeya muusena dhisa xusbiga kulmiyada badbaadadiisa waxay ku jirtaa in la isu tanaasulo laga wada tashado fayuujarka maxay noqon raqba waa ku rageed gobonimadu waa libin ku taxan geedi nololeed ayaan leeyahay halkaas Sidiiq ma waxaad uga jeedaa nimankii ila tartankii golaha dhexe ee xisbiga kamay tanaasulin ma ada talahaan baad ugu jeedinaysaa inay muuse u hibiyaan mise inay si daacad uga tartamaan oo hadii ay guuleystaan ayagana la taageeraad uga jeedaa halka sida runtii haddana analyse gareeyo siyaasadda istaraatiijiyadda siyaasadda ee ku soo fool leh mar haddii saaxadda siyaasadda ay fashil kugu dhaco ama uu damage ku soo gaadho oo waxay nimankani ku wanaagsaneen iyagoo iscasililo xilkii dawladda haya inay soo gaarsiiyaan 10 bisha November maalinta loo qabtay in golaha dhexe loo codeeyo cidda loo dooranayo taa awgeed maadaama iscasileen si aan habboonayn ay isu casileen
oo dadku u arkay inay ahayd afgambi iyo carqalad siyaasadeed dalka lala doonayay nabadgelyo darro siyaasadoodina damage soo gaadhay waxaan leeyahay u hibeeya isuna tanaasula xusbiga badbaadadiisa iyo horumarkiisa iyo sharaftiisa iyo sumcaddin iyo magaciina nimankiina iscasli laftooda sumcaddin waxa ay ku jirtaa idinkoo muuse u hibeeya waayo u malayn maayo in ay golaha dhexe maanta ay cod badan ay ka qaadayaan sida runtiiya marka waxaan leeyahay halaysu tanaasulo kulmiya waa xusbiga ugu miisaanka weyn la dalka waa xusbul xaakimkii afahante si wanaagsan haloo talada haloo rogo yaan lagu rafaadin hala rogrogo halaysu soo dhawaado xusbigana hala badbaadiyo ayaan leeyahay yusuf aad iyo aad baan umaadsantahay aad baad umahadsantahay sidiiq oo faarax bal iminkana waxaan wax ka weydiinayaa isla arrinkaa isaga gudoomiyaha jaaliyadda somaliland ee magaalada oslo cali maxamed cali saad u aragtaa arrinkaa isaga iyo shirkan golaha dhexe iyo siduu u qabsoomayo miyaa loo kala tanaasuli doonaa miyaa doorasho daacada ka dhacaysa sidaad u aragtaa arrinkaa isaga iyo siduu xisbigu ku badbaadaya bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta marka hore waxaan salaamayaa saxaafadda waxsan sheeg news salaan kadib anigu runtii horta laba sawir baa halkaa iga muuqda midi waxa weeye siduu xisbigu u badbaadi lahaa midna waxa weeye wasiirana iscasilay siday isu casileen iyo siyaasadda ka dambeysay iscasiladooda runtii horta waxay ahayd wax dad badan ay ka yaabeen maalin qura waxaa iscasilay tobaneeye wasiir tobankaa wasiir ay iscasilay horta marka ugu horeysa dee waxay somaliland waa dal dimuqraatiya qofku xaq buu leeyahay hadduu iscasilayo iyo haddii uu iscasilayo iyo haddii kalaba madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland na markii hore nimankan is wada casilay dee isagaa soo doortay isagaana keenay isagaana halkaa runtii gaadhsiiyey niman bay ahaayeen runtii culculus bay ahaayeen niman xilalkii ugu muhiimsanaa dalka ka hayay ahaayeen marka dadku inta badan dee shock bay ku ahayd inay nimankaasi isku maris wada casilaan taa waxba kuma fogaanayo dee runtii madaxweynuhu markiiba dee arrin go-aan adag buu ka qaatay wasiiro cusub buu markiiba magacaabay runtii somalilandna dee waa dal 24 sano soo jiray cid walba way ka maarantaa runtii waa dal aan cid looga baqanayn runtii marka anigu waxaan u arkaa arrintaa dhacday inay ahay arrin wanaagsan may ahayn runtii laakiin sabab u dhacday iyo dee wixii ka dambeeya way soo bixi doonaan hadduu ilaahay ka dhigo haddaan kusoo noqdo arrintan ah golaha dhexe ee kulmiye horta golahan dhexe ee kulmiye siduu madaxweynuhu sheegay iyo guddoomiyuhu de waxa ay yidhahdeen horta waxa dhacaya tartan xalaala ka dhacaya waanaan u rajeynaya inuu ka dhaco tartan xalaala wayo taasay ku jirtaa xusbigu siduu badbaadi lahaa waa inuu tartan xalaala horta markaba ka dhaca runtii xusbiguna waa de xusbi weyn in badan soo jiray oo haddii xusbiga la doonaya inuu siina jiro noqdana xusbiyada ugu taageerada badan ama loo malayn doono inuu musharaxa kasoo baxa ku guuleysto doorashada madaxweynaha 2017 aniga waxay la tahay nimankan xukuumadda iska casilay ee kuna jira golaha dhexe horta iyo golaha dhexe kulmiye in la isu soo dhaweeyo inay ay isu soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan oo khilaafka la xaliyo waayo khilaafkaas wuxuu saameyn ku yeelan doonaa musharaxnimada madaxweynaha qofka loo soo saaro waayo waxa weeye waa xusbi weeyaan oo nimankana anigu san arkay niman muhiim ay ka ahaayeen xusbiga marka niman taageerayaal watana way yihiin marka xusbigu wuu u baahan yahay runtii qof walba oo taageerayaal wata uu u baahan yahay marka anigu waxaan si cadaalada doorashadaas ha u dhacdo madaxweynaha waxaan kula talinayaa dee madaxweyne waanu caddeey waanu yidhi inuu dhexdhexa u yahay
nimanka musharaxiinta inuu u ahaado doorasho xalaalina ka dhacdo xisbiga gudihiisa si fiicanna ay doorashadan dhacaysa ama shirkan dhacaya 10 bisheeda si fiican u qarsoomaa ugu muhiimsan marka waxaan leeyahay runtii kulmiye oo xisbi weyn weeyaan oo ballaaran oo in badan kusoo jiray siyaasadda oo dee niman waayo arag iyo khibradba leh ay ku jiraan marka waxay rabtaa inay xalinayaan oo ayna ahayn arrin aan la xallin karin arrin aan la xallin karo waana xalinayaan bay la tahay sidaan u rajeynayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkana waxaa ku dhammaaday waraysigii gaabna aanu la yeelanay toddobaadkan guddoomiyaha waxsa sheeg news iyo guddoomiyaha jaaliyadda somalilan ee waddanka norway master sidiiq aw faarax iyo guddoomiye cali maxamed intaan waxaan ku dhammaaday barnaamijkii gaabna aanu ka duubnay toddobaadkan iyo tusaalaha toddobaadka iyo barnaamijkii waxsa sheeg news waa yusra maxaji axmed farhole oo idin leh sidaa iyo ismaqal damo xiisa leh